waxaan ugu kalifay barnaamijyada inaan siino markaanu aragnay inaan oo afkaartooda iyo aragtiyadooda iyo dowladooda ay ku cabiri karayaan. ugu dambeyn intuu barnaamijku noo socdo waxaan isku dayi doonaa inaynaan caqabadahaas iyo waxaa inaan ka hadal aynaynu isweydiino muxuu xalka iyo ardaydii jaamacadaha waxaan isku dayi doonaa inaynaan dhaliisha xooga kulamada caynkan oo kale inaan isku dayno muxuu noqonayaa xalku habeenka mawduuc gaar aynu ka hadli doonaa. waxaynu caawa eegi doonaa mawduucyo kala duwan iyo yihiin dhalinyarada. waxaynu eegi doonaa xaafadu kaalin caynkeeyaa looga baahaya inay ka qayb qaadato horumarka dhalinyarada. waxaynu eegi doonaa suugaadku kaalin caynkeeyaa looga baahaya inay ka qayb qaadato wacyigelinta iyo horumarka dhalinyarada. waxaynu eegi doonaa maxay yihiin caqabadaha dhalinyarada siyaasadda ka haysta. waxaynu eegi doonaa faham caynkeeya dhalinyaradu ka haysta dowladnimada iyo sharciga ma ogyihiin waxay xaq u leeyihiin mise waxaanay xaq u lahayn. waxaynu eegi doonaa aqoon-yahankii wadanka iyo ardadii wadanka iyo jaamacadaha yeelisay maxay aqoontooda sameeyeen. intaasi waa hordhac barnaamijka. waxaan ka cudur daaranayaa baanalka 5 qof baa noogu martiyanaa hablaha noogu jiray hablihii hablaha kusoo warabaxay naga cudur daartay. aad baan uga cudur daaranayaa. waan jeclay inay nagala soo qayb galaan laakiin insha allah waan ka cudur daaranayaa. barnaamijkeenu iska bilaaban doonaa. dhalinyaradii waxbay baranayaan jaamacadihii bay ka baxayaan. aqoontii dhalinyaradu maxay noqon weydeen? saameyn maxay yeelan weydeen? kaalin jeeleeg baa looga baahan yahay aqoon-yahankii iyo dhalinyartii waxbaratay ee wadanka. su-aasha ugu dambaysa ee ugu muhiimsanna waxay noqon doontaa tacliinteena sare iyo jaamacadaha wadanku ma u qaabaysan yihiin inay soo saaraan dhalinyaro isbedel iyo horumar abuuri karta. waxaan jecelahay su-aalahaas iyo su-aalo kaloo kasii farcamada inaan kusoo dhaweeyo maxamed sulub baan soo dhaweynaya. marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa xarunta dhaqanka Hargeysa. waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa murantii dhalinyarta iyo aqoon-yahanka oo balanqeedana loo jira iyo siyaasiyiinta. waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa dhalinyarta. waxaa ila tahay ragga u badan habluhu yaryihiin, aad bay habluhu yaryihiinoo 2-3 saf baan arkaa banalkan kasoo hadgalay. aad baan ugu mahadnaqayaa. xarunta dhaqankana waxaan leeyahay dhalinyarta soo uma marto waxaa kamid ah horta in loo furo forums baa kamid ah meel ay ku wada hadlaan waxyaalaha khusaya dhalinyarta ay kaga wada hadlaan oo ay ka kow tahay xaruntan imika la sameeyey. waxaa lata platform dhalinyarta waxyaalaha haysta ay kusoo bandhigi karto weey. waa dhalinyarta waxaa haysta sida aniga ila tahay mushkilad ah nin kastoo siyaasi ah ama xil haya ama oday dhaqameed ah ama sheekha wax la leeyahay in dhalinyarta ayaa mustaqbalka oo dhalinyar idinka ah hogaamiyaasha dhigtoole idinka ah mustaqbal. laakiin looma ogola inay siyaasad ka qayb qaataan, looma ogola inay manasib qabtaan, looma ogola inay ka mid noqdaan arrimaha khuseeya ee bulshada oo dhan. marka meel in la sameeyo waxa ugu horeysa isbedelka dhalinyarta ay tahay inay sameyso dee meel codkoodii laga maqlo in la sameeyo. marka xaruntan horta saasaan ku bogaadinaya. markii koobaadaan ka soo qayb gala anigu hore waan ka wada shaqaynay waan bogaadinta kadib. su-aasha koobaad haddaan u galo su-aasha waxay ahayd maxay aqoonta dhalinyartu saameyn u yeelan weyday. oo ani waxay la tahay laba qodob baan kusoo koobaya. qodobka koobaad waa identityga dhalinyarta Somaliland. waxaa la yidhaahdaa haddii la doonayo wax inay saameyn yeeshaan waxa waa in dadku daacad ka noqdaan. daacadnimadana waxaa ka horeysa identityga ka horeysa. dhalinyarta reer Somaliland imisa identity bay leeyihiin soo deyn kartaa. haddaynan taa ogaaninna waxaan isku sheegaynaa beenta isku sheegay jaamaca baan halkan iska fadhiya macankeyga oo marka arkaa identityga dhalinyarta Somaliland waxay u kala qaybsan yihiin mar reero clans bay kala qaybsan yihiin. marka takawar in waxbarashadooda ama aqoontooda ay saameyn yeelato dee divided way waxaa laga odhaa waa reer hebel oo dhalinyarta reer hebel tijada weli waxyaana aadka uga waxaa kamid ah بالمعنى هدي أدريه هذا أتكون رقم هسه حتى أنا هوس بدكتور ما ينتهي له صفر يستو شلون هذا عده لما يرتريه هذا
oo saa samaysay dhalinyarta hebel oo saa samaysay markaana waxay la tahay taas waa mid oo dhalinyartii horta identity waxay leeyihiin intaasoo identity mar waa reero mar dhalinyarta waxay ku kala duwan yihiin gobollo iyo magaalo waxay odhanayaan wareehda waxa weye dhalinyartii gobolka dhalinyartii halkaa marna waxay ku kala duwan yihiin ideological beliefs bay kala duwan yihiinoo waxa odhanaya dhalinyartii wadaadada ahaa iyo kuwii aan ahayn wadaadada aloonaya marka aniga waxay la tahay saameyn inay yeelato aqoontooda waxaa ka horeysa horta dhalinyartu inay yeelato hal identity inay yeelato haddii qofka dhalinyarta la weydiiyo kumaa tahay hadii la weydiiyo waxaa laga yaabaa inuu la soo boodo waxaan nin reer hebela ama waxaan ahay nin wadaada ama waxaan ahay tusaalahaan nin reer buca ah ama waxaan ahay nin reer borama ah identityada kale markaa waxay la tahay saameyn waxay u yeelan weyda kow waxa weeye waa identityga qodobka labaad aqoonta waxbarashadeena waxaa ka maqan bilar muhiim ah oo aqoontu marka waxbarashada gaar ahaan jaamacaduhu waa inay soo saaraan maaha keliya taa arday aqoon xambaarsane arday xambaarsan skill iyo tan caawa ah aan u jeedo qodobka labaad ee sababta u ah in aqoontooda saameyn yeelan weydo oo ah attitude marka attitudina problem baa haysta dhalinyartii somaliland ninkii dhalinyarta ahaa aqoonin buu bartay laakiin garan maayo ethicska shaqada garan maayo ethicska leadershipka dhalinyarta waxyaala uga carin jirtay waxa weeye kama qayb qaadan karno siyaasaddii waa ogeedeenoo xeerkii hoos baa loo dhigay in 25 jir ilaa 30 jir bay la tahay inuu ka qayb qaadan karo haddana dhalinyartii sambalkii naga tegey golayaasha tegey ama manaasibta dowladda tegey in effective noqdeen markaan waxay la tahay attitudinal problem baa jirto waxay la tahay in akhlaaqda ay tahay in raacda aqoontu ay dhalinyartu yeelato marka labada qodob baan kusoo koobaya qodobka koobaad waxaan ku dhigaa identity waxay saameyn dhalinyarta aqoonta dhalinyarta u yeelan weeyey because of dhalinyartii somaliland identity crisis baa haysa qodobka labaadna waxa weeye aqoontii dhalinyarta ay soo barteen ayaanay attitude la socon attitude wanaagsan ama ha noqdo work attitude ama ha noqdo leadership attitude asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته mahadsan yahay aqoonyahan maxamed sulub hal su-aal baan doonayaa inaan dib ugu yara celiyo tacliinteenii wadanka iyo jaamacadaheenii wadanka iyaga laftoodii ma u qaabaysan yihiin in ay soo saaraan dhalinyaro isbedel iyo horumar abuuri karaysa dhaliisha dhalinyarada marka laga yimaado ma jiraan dhaliil ay leeyihiin goobaheena waxbarasho iyo jaamacadaheena waxaan jeclaa inaan yaro fikiro mustaqbalka waxba kasoo maxanaya moogti marka laakiin lagu soo celiyey horta ana waxaan ka tirsanahay waxa aan ku dar lahaa program kale in biography ah lagu daro dadka banalka ah si dadka ay u fahmaan qof kasta walku ka socdo khibradiisa waxyaalahaas ay u fahmaan iminka waxay la tahay ardayda waan dhowr mar arkin mooyaane inta kala dasgaranayno markaa jaamacadda hargeysaan ka tirsanay in badanna waxbarashadan kasoo shaqaynayay ilaa 10 sano iminka ah jaamacado kala duwan laakiin maanta halkan dee jaamacaddii hargeysa iyo jaamacadaha ka difaaci maayo waxaan wadnaa waxa weeye critical discussion in wadnaa aan doonayna bal inay xal ka soo baxo barnaamijkan ama forumkana bilowdeenna waxaa ka soo baxaa in hadhow loo sameeyo feasibility si voice ay u noqoto dhalinyarta voicekooda ay u socdo waxbarashadeena ma u qaabaysan tahay si dhalinyarta niyadaynato ma qaabaysna in very short waxay ma qaabaysna because of waxbarashadu sidaan sheegnay horta kow waa knowledge manhajta horta hal mushkilad baa haysata identityga markaan lahaa identity crisis baa dhalinyarta haysta iyo soomaalida dhan in fact scholarska sida Somali scholars baa sheegan inta badan dhalinyarteena waxay ka soo baxdaan goobo aqooneed oo kala duwan intaan jaamacadda soo gaarinba waxay ka soo baxaan manhaj kala duwan horta manhajka baan maraysnayn waxbarashada qaar waxay ka soo baxaan manhaj Sacuudiya oo walibana aad u extreme ah very extreme ah oo carabi lagu dhiganayo qaar waxay ka soo baxaan manhaj amba wadamo kale leeyihiin sida Kenya ama Uganda oo kale qaar waxay ka soo baxaan manhaj Suudaani ah
qaar waxay ka soo baxaan manhaj kale oo dalal kale ah waxaana ogaataan halka qofka laga dhisaa jaamacadda maaha waxa weeye waxbarashadii hoose wey marka qofka dhalinyarta ah uu ku yimaado isagoo soo qaatay manhaj sacuudiga waxba kala dhicin karmaysid wuxuu ku imanaya isagoo philosophy kala wata wuxuu ku imanaya iyadoo kala duwanaansho ay jiraan ay ku imanayaan marka waxay la tahay goobaha waxbarashada uma qaadaysna inay dhalinyarta horumarkooda ay ka shaqeeyaan because of saan sheegnay waa kala duwanaansho dhanka manhajta ah iyo waxbarashadii sare oo imika noqotay tartan business bay noqotay waxaan ognahay in ay jiraan jaamacado badan oo private ah oo u shaqeeya sida kambaniyada qofka lehna uu ka raadiyo uu faa'iido ka raadiyo waxaan ognahay innaga sector kasta oo Soomaaliland inuu yahay unregulated regulation sidaan jiray warta marka uma marayna rumaysanaysaan haddaan idin sheego in education policy-geedii dhammayd education policy adamaha higher education policy siyaasadii waxbarashada weli waa draft ilaa inka waa draft marka waddan waxaan nahay siyaasaddiisi waxbarashada weli draft tahay higher educationka mise waa educationka labadan mid weeye dhaqaldama higher educationka taqriiban ay weeye weli waxaan u maraynaya in educationka tahay higher educationkuna waa draft manhaj midaysan ma jiro inspections ma jiro dhalinyar badan baa waxay soo baxayaan engineers laakiin aan engineer ahayn jaamacadaha waxay u shaqeeyaan sidii private sidii ganacsiga u shaqeeyaan jaamacadaha inaga waxa la license gareeyaa jaamacadda ayaa la license gareeyaa halka ay takhasusaadka lagu dhiganayo in mid kasta la license gareeyo oo jaamacaddii bilaabta soo lahaan public health bilaabeysa amba nursing bilaabeysa in loo fasaxo inay bilaabi karto takhasuska ah inaga waxay ognahay jaamacadaha ka soo shaqeynayaan programka doona bilaabayaan de waxa ka soo baxaya markaa dhalinyaro kala wada duwan ba ka soo baxaya oo ah from graduates isla waxba barateen laakiin aan waxba baran ay ka soo baxaya marka intaasaan kaga baxaya infact waxaan rajeynayaa inay ka duwanaato sessionkeenu sida xafladaha kale inta las amaano uun laga tago laakiin waxaan rajeynayaa da critique ba factskan jeclay inaan ka hadlo laakiin intaasaan kusoo kowataa aad buu mahadsan yahay maxamed sulub waxaan sii xoojinayaa qodobka ugu dambeeyay yidhi inta la is ammaano in la kala tago oo intaynu qosqosolnoon sacabka tubnay inaan kala tegin maanta bal xal iyo afkaar iyo aragtiyo la keeno oo xafladaheenu madalaha aroosada iyo madala aqoonada inay tahay la kala garto waxaan jeclaa qof walba markaan siiyay su-aalihiisa intaan israaciyo hadalka deetana uu saa kaga dhamaado marka dambe su-aalaha loo gudbo يونس أحمد يونس بن كوير جنيا حقايا عدالة حزب الوطني سؤالها الويدين دوننا نحن نقول دونان محيين عقباتها دلنيرة السياسة كايستا حزبية دحدودة دلنيرة السياسة وصول موغان كريان يسير لو قد بكريا عقباتها دلنيرة الهيستا يونس بن سعود وين يا وقت بلاد بن نبي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبة الله سبحانه وتعالى ما هذا نص نعطي مركبة الله معنا قيا مناشن قيمها له أي شغله وديك قفك waa hogaaminaya Dr. Jama ayaan leenahay maadsan tahay way meel dhalinyaradu ay fikirkoodii aragtidooda ay ku bandhigaan buu hindisay markaa waxaan leenahay maadsan tahay boqol jeer waxaan leenahay maadsan tahay marka waxaan mahadnaqayaa dhalinyarada qabanqaabada barnaamijkan soo qabanqaabisay marka saxaabada mahadnaqayaa walaalada xakan ka qayb gelaya sulub iyo guuleed iyo yaasiin aan halka cudur daaran horta aqoonyahan iyo arday baan ahay intaana muhiimkaas waxaan doonayaa doorka la igu yeelay waxa weeye doorka xisbiyada ee carqalada dhalinyarada ka haysata marka muddo iminka dhowr iyo toban sano xisbiyada ku dhex jiray marka anigu angalka xisbiyada iyo dhalinyarada iyo waaqaca ilaa waxa la tago mid taagtiiraya sulba macalinkaygii markaa ardayga macalin iskugu keenana waa carqalad kale marka anaga fahmka waan saxayaa marka waxaan leeyahay أهمي جهل الإسلام منطقة طبعا waxaan jecelahay inaan ku soo koobo carqaladaha dhalinyarada ka haysta siyaasadda gaar ahaan xisbiyada 2008 baan anu membership xisbi ka noqday 2008 carqalad iyo guulo iyo jaranjarooyin badan shakhsiyan waan soo maray
laakiin saddex qodob muddo ku soo koobo carqaladda umuuman dhalinyarada Soomaaliland ka haysta siyaasadda kow marka koowaad waa qabyaalad weeyaano soddon jir siddeetan jir reerna ku taageeraya horta dhibta ugu weyn ka jirta wey oo aan aragtidiisii iyo aqoontiisii iyo kartidiisii iyo xooggiisii aan banaanka ula soo baxayno siddeetan jir dagada gelinayo ku dhuumanaya oo la adeer soco marka dhallinyaradii baa hadhaysay odayaasha waa inaan ixtiraamaya waayeelkeennii iyo ummaddeeni laakiin noloshu waa challenge iyada horta markaba dhallinyarada challenge iska dayacay waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa weeye de wax walba waxay leeyihiin carqalado ninka weyna madasha jooga ma ogola qof ciriiri ku sameeyo oo ka aqoon badan oo ka karti badan waayo ninka dhallinyarada qofka weyn uu ka karti badan yahay uu ka firfircoon yahay meeshuu gelayo kelmadii odhanayo intaa midna ma odhanayo marka taasina waa carqalad kale tasaddexaadaan aan isleeyahay waa qayb waa siyaasiyiinta Soomaaliland dhallinyarada u hagar bixin xaqiiq marka laga hadlayo hogaamiyaasha siyaasadda saddexdaas Soomaaliland jira uma hagar bixin marka laga reebo Cabdiraxmaan Ciro oo annaga baal dahab naga siiyay xisbigeeda إذا أبيك للدنيا كذا يا أول نيكي مرحلة وحنا صوب الأوانب أفيان كرب دانير وحنا صوب حقيقة حقيقين كرب دانير يارها وحنا نقول حقيقي دانير يارها ما أنتو حنا حقيقي عدالة يقصر في السومال الحزب قاع وجود السومال معارض مركا هذان عبد الرحمن عيرة بلجيت الشيء والدنيا الشيء ده مركا ارتحال قاسوا حزب المال كذا على هذا دواء السياسي تواصل قال marka si guud ma kama hadallo anigu waxaan qabaa hal aragti baan qabaa oo mid labaad lahayn dhalinyaradu way guulaysan karaan haddii ku awoodooda iyo cududooda iyo ciidkooda iyo caqligooda banaanka u soo bandhigaano waayo bulshada boqolkiiba 60 weyn iyaga isxagranaya iyaga isla haraya iyagaan daacad ka ahayn baad moodaayo oo kelmadahan hore u soo sheegay qabyaaladu ka mid tahay waxa weeye ay u yihiin asaas xawbahan Soomaaliland dawladnimadu inay dhalinyarada xoog saarto shuruuc baa bardawad ay dawladda Soomaaliland xukuumadda Muuse Biixi hindistay barnaamijkii shaqo qaran oo hambalyeynay barnaamijkaas 3 sanadood aad moodaysaa inuu inoo hirgalay barnaamijkaasna uu banjaray xagga dambe ka banjaray bilowgiisu ugu wanaagsanaa xagga dambe ka banjaray dib uma arag bilowgii hore wanaagsanaa 3 sanadood 2 sanadood dambe iyo sanadkii imika dambe sanadka afraad ku galayba marka meelan arag barnaamijka waxa u baahan marka barnaamijyada noocaasa in dawladda Soomaaliland ay awood saarto dadka suuqa jooga iyo dawladdu waa kala mas'uul awood waxay dawladdu u leedahay inay madalo Dr. Jaamac oo kale u sameeyaan ganacsiga xaq leeyahay inay dhalinyarada wax bartay ee jaamacadaha ka baxay ee masterkiyo PhD-ga soddon jir Soomaaliland saddex digriyaha jira soddon jir saddex digriyaha jira waa wanaaga iyo nabadgelyada iyo horumarka Soomaaliland laakiin meel buu iska fadhiyaa ku shaaxayo hooyadiiba ayaa shaaxa soo siisa hooyadii siddeetan jira waa shaaxa taasina waa awood darro dhalinyarada haysata inay dhalinyaradu tahriibaana waa caqli xumo ma dawlad xumo anaa qaba inay dhalinyaradu tahriibaan waa caqli xumo يانا تهريبي يانا مالفيتي ممكن هايست أود أن كبرت سنة سدنشير مرحينا سمعنا وسمعنا سدنشير مرحينا وإن اللينا أن سمعنا ومرحا أن سمعنا عرقلها أكو صانقلا عرقلها أكو صانقلا حزبية ولا استري حاطن وش بحوي كان شو نور بتشانس بيت كتير حزبية بحوي وحوي platform taban kuma laha xaqiiq kuma laha dhalinyaradu marka si guud looga hadlayo xisbiyada qaranka marka xisbiyada laga reebo ma laha platform ma laha koob iyo 10 xil baan ka haynaa xisbiga wadani koob iyo 10 xil oo xorriyada gudiga afartan jir ka waran ilaa xaqiiqada isku sheegaynaa in xaqiiqada tabanaya waxa u baahan koob iyo 10 kaasi inuu kuma filla marka xisbiga iska deynooha koob iyo 10 inuu filla waxaan ugu fullay 89 position on xisbiyada ka qabano oo odayaashana tamansiino ama 15 inta kalena haween iyo dhalinyaro qaataan ayaan u baahanahay
taana waxaan ku keenaynaa inay dadaalno wax doonano odayga ardayda gelinaysa iska dayso hadda tusaale fiican baynu hor yaala oo calaam su'aala doorashooyinka la gelaya dhalinyar baad sharaxaysaa dhalinyarada han taageerno oo ardaagayo iyo abtirsiintan ka duuno oo aan akhrino oo muxuu qabtaan eegno sidiisaan eegno public figure muxuu keenaan eegno aqoontiisu waa noocaan eegno dhalinyarada ku waxbartay inay biqinayna siyaasadda ceeb iyo xumaanu moodine asoo dhiiradaan wallaahi inaan ku bulmaysaa maahiin haddaad kursiga fadhido qofna wax ku siin maayo anigaa dhalinyaro idima siinayo iska daa waaweenkii aniga booskayga haddaad soo doontaan idima siinayo soo doonta iyo qaata marka caqabad baa jirta dhalinyarada xisbiyada ka haysta siyaasadda ka haysta taasina waa siyaasiyiinta oon u hagar baxay dhalinyarada somalilan boqolkiiba 60 weeyaan ku celiyo cididooda ilaahay muujiyaan marnaba hadiyad maaha halganku cid adduunyada somalilan halgan bay ku dhalata xabadeed inaga halgankeenu hadal aan muujino marka xataa waxay arkaysaa marka dee dhalinyarada public siyaasiyiinta babliga joogaa dhalinyarada suuqa joogaa ma taageeraan kuwa xisbiyada ku jira saddexdeena xisbi qaran iyo dowladda ma taageeraan istaageero oo annaguna aynu taageerno iyaguna na taageera aan istaageerno aan kuraasta odayaasha ka qaadno ilaahay inagu ka qaadno kursiga noo bananaay waa mahadsantiin aad buu mahadsan yahay xogayaha cadaaladda ee xisbiga wadani maxamed cabdi ilig baa isaguna inoogu soo biiray oo barnaamijka nagala qayb qaadanaya waxaan jecelahay mar labaad inaan u mahadnaqo xarunta dhaqanka iyo guddoomiyaha xarunta dhaqanka jaamac muuse jaamac martiqaadka ayna siiyeen iyo madasha ay muxuu haayay noo fidiyeen aad baad u mahadsan tihiin barnaamijku waa barnaamij madax bannaan annagaa wadana xarunta waanu ku qabsanaynaa un waanan idinka raali gelinayaa mar hore saan idinku sheegay in banalka ay habla nagu soo biiri waayaan barnaamijyada joogta inoo noqon doonaan insha allahu tacaala barnaamijyada dambe aad baan u badin doonaa guud ahaan martida inta meesha joogtaa qof walba mawduuc gaar uu ka hadlaya waxaan soo dhaweynayaa iminka yaasiin madaale halabuur dhalinyarta suugaanta tirse ka mid ah su-aashan isweydiin doonaana waxay tahay kaalin intee leeg bay suugaantu ku leedahay amba ka qayb qaadan kartaa wacyiga dhalinyarada si doorkii abwaanku uu ku lahaa kaalintaasi ma ka soo baxay bismillahi raxmaani raxiim ilaahay baa mahadleh waxaan sidoo kale ugu celinayaa xarunta dhaqanka iyo dhammaan akhyaarta qiimaha badan leh ee caawa munaasabadda tan ka soo qayb galay waxaan noo celinay sidoo kale asxaabta qiimaha badan leh ee halka keliya heliyeen kulli horta waa yaro kaftamaya dhalinyarada lafteeda heliyaa waxaana marka waa dhalinyaraa waxaa ninkii jimca la odhan jiray ayaa lagu yiri juxa hortiisa jirmaa tahay dabeetana waxay afartan jirin berita baxdan lagu soo noqo juxa hortiisa jirmaa yahay haddana waxay joogaa afartan jirin sanad saddexaad baa haddana lagu soo noqdo juxa hortiisa jirmaa haddana afartan jirin buu sheegay inta dambe waa loo juxay afartan jirin baa sheegtay halka hore afartan ka dhaafinba dabeetana waxay leedahay hadda nimankii go-aan baa la yeeshaa niman baa horiyo niman haddaad bedelka kuma fiicnaa waxaa laga socdaa horta inadan doordagelin kulle caawa intaan hubo ama intaan ka wejiyadooda waa dhalinyaro adiga jaamicu bay noogu weyn marka caawa waa dhalinyaro iyo soo codeeyeen taasi waa taas in yar waxay iga dirsaagi doonaan marka laga hadlaayo suugaanta iyo roolka ay ku leedahay dareenka bedelidda ama wax ka bedelka ama dhiirigelinta ama wacyigelinta dareenka bulshada iyo doorkii ku lahaa abwaanku ama gabayaadu waxaan sidoo kale kala soo bixi doonaa bal doorka dhalinyarada ay ku lahayd xilliyadii hore iyo xilliganba sidoo kale waxaynu hiraalin doonaa ama aynu soo tusaalayn doonaa mustaqbalka doorna ay ku yeelan doontaa horta sida mawduucyada loo kala qaadqaaday waxay ku xiran tahay horumarka bulshadu waa wax dhinacyo fara badan ka socda wax dhinaca qura bulshada haddii laba siyaasadda iyo hoggaanka quraha laga horumariyo waxaa laga yaabaa waxyaabo kale fara badan iyo daba dhacaan oo infrastructure ama kaabayaasha dhaqaalaha haddii tacliinta oo quraha laga dhiso tacliinta saxaafadda suugaanta siyaasadda dhammaantood waa bardhaafo midba midka kala kaabo in mid walbana kaalintiisa dad ka soo baxa ay tagaan waxaa ku xidhan bulshadu si dhaba loo horumarto oo mustaqbalka iyo dowladda iyo hagaagta rabana xaqiijinayna si fiican loo xaqiijin karno marka waa qayb ka mid ah
qaybaha laga mugaya miisaanka culus leh marka laga hadlayo suugaanta sababtoo ah bulshada soomaalida waxaa lagu naaraysaa bulshadii gabayaaga ama bulshadii suugaanta way suugaanta nolosheeda iyo taariikhdeeda raad fara badan ku leh wacyigeeda iyo waxqaadashadeedan runtii saameyn fara badan ku yeelatay inta badan ugu horreynta waxaad u istaagi doonaa suugaantu kaalmo nooceeda ay nolosha ugu jirtaa adaa ahmiyad intee la bay leedahay waa kow suugaantu markay si dhaba u tibaaxdo waxaa la dhahaa dhaxalka qura ee maskaxeed ee aynu ka hayno boqolaal sano oo tegay awliyaasheedana bulshadanu ka tafiiranahay bulshooyinka kale caalamku waxay soo saareen laamaha kala gudbada cilmiga ikhtiraaciyeen hadday noqoto natural science-ka hadday noqoto social science-ka hadday noqoto falsafada iyo laamaheeda kala gudbisan laamaha kala duwana aqoontay kaydinayeen oo maanta library-yadeeda iyo rugahooda cilmiga runtii taalla laakiin innaga laanta waxa qura cilmiga qura ama aqoonta qura ama xikmadda qura ee awliyaasheeda nooga tegeen waa suugaanta weeyaan haddaanay suugaanta tahay bulshadana waana ku faalantaa wayna ku naalootaa waa inay meel lama huraana runtii maadaama meel lama hurana nolosheeda ugu jirto waxay dunyada kale ka leedahay marka waa dhaxalka cilmi aqooneed maskaxeed oo wax soo saarka maskaxeed ummaddeena ugu ballaaranayna haysano maanta runtii xarunta naag saldhigga u tahay inay noogu kaydsan waa masalada koowaad sidoo kale suugaanta waa deegaanka qura ee qoran ee taariikheed ee qofka soomaaliga ay haysto marka suugaalkeena duba milaasano ma jirto dhacdooyinkii ka dhacay deegaankan ee siyaasad lahaa ee dhaqaale lahaa ee hogaamin lahaa ee arrimo bulsho lahaa in ka dhacayay 200 sano ugu dambeeyey afartii qarni shantii qarni toddobadii qarni ee ugu dambeeyey ka dhacay geeska afrikada deegaankan aynu degannahay ma jirto library dib noogu noqdo ay noo qoranayna nagu leenahay marka laga tago bugaag ama qoraallo fara ku tirsan qadyaal shisheeye qoreen laakiin taariikhda dhabta meesha laga dhahdo ee dib loogu noqdo ee qaamuun ee library-ga inoo ahay waa suugaanta weeya ama daliilka dhabta lagu kala saari karo ama laga qiyaas qaadan karo taasina waa qodobeeya qodobka saddexaad waxay suugaantu waa qaamuuska afeed ee ugu facaweynle ama ugu mugo ballaaran aynu haysano afka kan waxaynu ognahay bulsho waliba waxaa jiritaankeeda ka marakacaya afkeeda haddii bulshada afkeeda meesha ka baxo ayadana automatically inay jiito ay isbeddelsiin khibrada afku ama dadka ka sheekeeya jiritaanka dadyaga iyo bulshooyinka maxaa jiritaankooda dunyada baabiya inta afkaasi jiro bulshadaasina inay jirtaabay ka dhigatay laakiin da afkaasi daciifo ama meesha ka baxo mar walba bulshadaasina meesha ka baxdaa waxay ku milantaa ama ka mid noqotaa bulshooyinka kale afkooda iyo dhaqankooda iyo suugaanta baa la falgashay ku milanto taasina waa qodobka saddexaad qodobka afraad suugaantu waxay bulshada soomaalida ahayd waa dambaalsidaha ugu weyn ee firin isugu gudbiyo ama dadka wax loogu sheego dambaalsidaha ugu weyn oo qura maaha oo halka saxaafadda ugu jirto kaliya guday jirin waxa ugu muhiimsan ama wadabaxaadka waa in dadku wax ku kala qaataan fadhiin kasta ama hadal kasta haddaad tiraabku sheegto waxaa laga yaabaa inay saamaynteeda yeelanin laakiin haddaad tiraabtay adeegsatay haddii aad suugaan u adeegsato waxaa laga yaabaa dumaaqa iyo damiirka qofka soomaaliga inay saamayso waa shayga la iskaga wacyigelin jiray wax kastoo bulshada laga wacyigelin jiray waa shayga lagu dhiisan jiray samaan kasta marka la rabay bulshada la faro waa shayga lagu heli jiray soolaa soo qaato haddii imika la rabo la rabo in dadka in looga digo halakada colaada sokeeyuhu u leedahay iyo riiqha ay gaarsiiso dulmintayada ama naf iyo maalmale dadka soo gaarsiiso oo khudbad dheer la galo waxaa laga inay saameyn fara badan ku yeelan laakiin haddaan u sheego anta ugu sheega ama suugaan ugu sheegaan idhaahdo sow nabadu surinkaad martada isoo nabadu sahaydaada oorsilato in maaha sow gudabtu surinkaad marto asaabka soo maaha qof hadalkaasuu kaga saameyn badanaya intaasoo intigaal ugu sheegi lahaa wasaarta marka la leeyahay waa dareensidaha waxaan leeyahay dambaalsidaha ama firiitariyaha ugu miisaanka culus leh in bulshada lagu gudbin jiray markii suugaantu ahayd taas waa taas weeye tusaale waxaan ka cadaynaa qabyaalada eexda qaraabakiilka iyo waxyaaba kaloo la halmaala way kala badan tahay ama way ku kala saameyn badan tahay qofka soomaaliga inay halkan soo istaagaan khudbad dheer galaan idhaahdo war qabyaaladu ma wanaagsan oo ariga kuma wanaagsan oo carruurtada ma wanaagsan oo noloshaadii bini'aadaadii deegaanka dadkan kugu xeeran xeerkeeda ka dhexeeya ma wanaagsana waxaa laga yaabaa inaanay hadalkaas aad ugu dihin baa suurtagala laakiin haddaan soo qaato tixriga gaariyo if anaana qaliilka wiilkaa ku adeegta niman aayariskiisu taagi karaynin una haysta ateero amintuu dembi geysto uu ku hoos kala eeka waxaa laga yaabaa qofkaas inuu dugu fadhiisto uu gulaamo dugu karo xoolaha kanu faraha kula jiraa inaan ugu habboon ahayn marka markayda waa dareentaryaha ugu miisaanka culuste sida ugu saamayso suugaantu qofka soomaaliga uma saamayso hadal kastoo kale oo aan ka hayraadin suugaanahay uma saameeyo
taasi waa taas weeyaan waxaan iga rabaa inaan wara kasto halgamadii kala duwanaa bulshada ama mujtamaca kan soo galay hadday noqoto halgamadii kala duwanaa loo galay ibarnimadoonka hadday noqoto halgankii horumarinta tacliinta loo galay hadday noqoto hurmudka oo ahaayeen aabayaasha tacliinta maxamed axmed cali yusuf xaaji jabir cilmi qabiile yusuf sucaad sanatir gaanti xamsaan xasan mursal maxamed sharaaqaad in ay imaadaan fursad nololeed oo iyaga jihayn karta oo ku jihayn karta dariiq wanaagsan markay taasi ku jihaysan ay bulshada jihayn karaan ninka suxufiga waa xiriiriyo keliya horta wuxuu u dhexeeyaa dadweynaha iyo dadka awoodda leh ee baawarka haya ee mas-uuliyiinta intuu xogta ka qaado ayuu dadka gaarsiiyaa dadkana xogtoodu soo qaadaa iyo baariyahooda dadka madaxdaadu gaarsiiyaa shaqada ugu weyn uu qabtaa waa communication marka waa inuu xiriir wanaagsan u sameeyo dadka madaxda iyo dadweynaha la maamulayo saxaafadda ma wax la bartaabaa mise waa wax xiriir qofka bini aadamka uu dhasho oo isagu leeyahay waxay noqon kartaa aqoontaada haddaad dhisto xirfado kala duwan aad barato aad fahanto aad ku shaqayso awoodaheeda iyo nidaamkeeda iyo xirfadeeda aad fahanto adigoon iyada baran weliba noqon kartaa suxufigu maaha qof warramaan laakiin shaqooyin badan buu qabtaa maadaama shaqooyin badan qabto waad qaban kartaa waana noqon kartaa okay haddaba maxaa jirta mid iyadana la barto oo saxaafadiya oo ah inaad barato culuumta saxaafadda aragtidu dad badan way ku kala duwan yihiin dad waxay dhahdaan qofka suxufigii waa professionalismkiisu inuu wanaagsanaado waana inuu ku dhaqmo code of conductiga marka waxay dhahdaan journalist is a professional who behaves code of conduct marka maxaa ku soo ururay qofka suxufiga oo dhan akhlaaq waa code of conductiga waa akhlaaqdii iyo xeerarkii warbaahinta qaabka dhan walaanaysa marka warbaahinta gurigeedba haddaad u fiirsato waa akhlaaq waxaa la yidhaha dhinaca kalena waryaha wanaagsan lama xidho maxaa dhacay marka hore xeerkiisuu og yahay wuxuu khalad ku gelayay iyo wuxuu wanaag ku gelaya oo garanaya marka qofku maadaamuu akhlaaq leeyahay xeerna uu leeyahay xeerkiisa markuu akhristo dhibaata kuma iman karto soomaliland maxaa caqabad ka jira ee warbaahineed ee u baahan in laga baxo warbaahintu waxay noqotay shaqo aada u fudud oo qof kasta oo bini aadama ama soomaaliya intuu iska soo imaado oo uu xafiis imaado oo intuu xafiis ka imaado odhan kara waxaan doonaya inuu weriye noqdo hadduu qofku aftahankaa xaafadooda wuxuu doonaya inuu weriye noqdo hadduu qofku suuqa ka hadlo oo kuwa maqaaxida ka hadlo aadka u qaylabad wuxuu doonaya weriye noqdo weriyenimada wuxuu yaqaanaa inuu hadli karo la indhaadaydo qofku dhiiran yahay xafiis iska gasho kamarada qaadato qalinkiyo buugga qaadato laba qof soo waraysato maalinta dambana ciddaa doonto maaragtaa tiraahdo anaa suxufiya kadibna waxaa doonta aad qorto taasina maaha miinada miinada waxay u baahan tahay adeegyaad bay u baahantay qofka suxufiga saddex shay uu ka shaqeeya ama miinada saxaafaddu waa to educate to inform to entertain inaad wax barto dadka waa mas-uuliyadda saxaafaddu ay leedahay waa in dadku ay wax baraan waa macallin waa wacyigeliye adna suuqidaad ka timid saxaafaddiibaad soo gashay mikrofoonkiibaad qaadatay 4 goor baad hadashay maxaa dadka doonaysaa inaad barto adigaa u baahan wax lagu baro adiga naftaadigaa u baahan in la kobciyo adigana waxaad doonaysaa inaad dadka wax u sheegto to inform qayb ka mida weyaan in la wargeliyo dadka warka muxuu u baahan yahay isaguna sugnaansho u baahan yahay sugnaansho muxuu ku imanaya waa accuracy plus balancy plus clarity is equal credibility waa a plus b plus c is equal c weyaan marka muxuu ku imanaya waxaad raadinaysaa shayga ugu weyn waa credibility wax la yidhaahdo credibility baad raadinaysaa sidee ku imanaysaa waxay ku imanaysaa in waadaha akhlaaqdaada wanaagsan tahay oo accuracygaagi sugnaanshihi xogtaada wanaagsan yahay warkaaga uu cad ka leeyahay balansigaaga uu muhiim yahay oo aanad ka xaafadaadana raacin ka kalena raacin ee aad intaba u dhaxayso markaasay imanaysaa credibility qofka journalistka hadduu credibility helana waa shayga ugu dambeeya ee ugu wanaagsan oo sumcadda ugu dambeeya heli kara wayaan markaa si taas ay u timaado qofku waa inuu fahansan shaqadu ka shaqeynaya tusaale ahaan iminka social media soo baxay qof kastoo halkan fadhiya waa suxufi xaq buu leeyahay wax qoro xaq buu leeyahay wax soo gudbiyo xaq buu leeyahay inuu warramo xaq buu leeyahay aragtidiisa laakiin ma lagu kalsoonaan karaa qof walbaaba wuxuu qorayo uu soo gelinayo goobta uu ku leeyahay baraha bulshada waa waa qofku ma dhinacdaa waxa saameeya qofkii nolosha caadigeeda socota warbuu qof qorayaa kii kale ma hubsanaya wuu sii qaadanaya maalin walba wuxuu ka shaqaynayaa ra'yi uu qof kale leeyahay
ama siyaasi kale leeyahay ama aragti kale uu leeyahay inuu sii gudbinayo laakiin isagoo curin male waxa dhacaydaa maalinba 500 boos baa ku dhacaya haddii halkaasi taxi yar ku dhaco 5,000 qof baa maanta sii gudbinaysa shaargaraynaya qofka markay curintii maskaxda istaagtay wuxuu sugayaa in aroortii maxaa dhacay xataa muusan maxaa dhacay qofka bini'aadamka wuxuu baahan yahay faham inuu fahmi karo wuxuu ka shaqaynayo لأن الكاميري لأن الذين آمنوا فاسقكم بالنبأ فتبينوا محال بهم عاود الحكى ليس ووكب مالي بالتركاب كقرته اللي بهمنا وانسحب عهين وقفكوك يعني يفقوني أتسانا قفكوني والعقبة انت راحت كقر سهولياتك بينها أخرمت يتوالك التوامات يتوالك من في جواب أطراحه وتوجد قاعدة هو حاسو مشروع قاتل حاسو خلطات كرمانه لكن قف كل شيء قف كل انترس بالله انترس كله يحاول أدي الحق والسموك ومرصدا هذا ما تصاحبته لكن أكيد في جواب سهل يعني كل ما حسبت أنت بيشوا اللي حساب كله جلسته وكل ترى هذا حسبت كقرطي إن جالسات جالسش أنا ما عملت بيش كذا وأنا كاسره لكن إحنا من ما هو بقرطاقين بقارة قيد كل دور بنت لما قطعين كان شكله قوانا سنة كلفتي ما هنا أمين مكوانا عن سنة بدي مريض بدي في نقول إنت هو بين ريال وريال وحوالين بنت زي كشران ناس الجليان وعينكم بقول من هنا أوقف أوك هذا بيجانا أبنا كان أركز الشيء بقول يا أبو أتكلم تكرر بدي خليك من الريال وايد ما طلع صحة أتصور التان هذه أتسكر كالكريسان بقول كذا شيء سلاش شيء بالدرسان وفكرة قفكر إليه فكرة أفضل معها بخوار نالك سوديني سواشاس سيدان مكان كوسي حق سوغان تنكسيو أدي حق تسوان أدو سيقالة تايدو سي قد بسا أدي ليادتها بدبينيسا أتشينيسا معنى وضع خلطها بالنسبة لحي بانتك كالسوني نوحي كل سنة أقوام نوحي كل سنة الحكمة نوحي كل سنة الفهم لكن إنت هاسلتانتو أي مقامسا شقاض إلى المياه مرتوعي من الإنسان يستاكتو هل تصارى الإنسان قبل ما يريد أنا بريس كفاية وقبل فرشنا حكيش غير سيروشكا وقال الدليل وضع أساسيشن ما يريد دليل على الشرقالة محاول الكيس مينيس يدى روشكا يبغض جيش ميني حدوني سينا روشكا خلقه سطو روشكا مرة يجب سينا جيش ميني روشكا ولا طبعا يدى حكوه رميس الوضع عاصمة جريسلي وراء حكوه رميس موسكو انت موسكا كبحرو اي جريسلي تكتا جريس من رأيه بصور رسا شورنا كي قرطا حدنا البحضان رأي بروش كي قرطا من جبسا بريد الرشانكم لي أقلن إن حيق تبرتع جيتنيا وذي قرط شورنا لغا روشكا أما وحيد فكريان أما ركتيني بصحدا أما وحي آهيسيين أما دلوكو دا أما ركتيني محابا أي تجميل كوحي قبسة السكول أغير لكو جرتي يدو جوجل جرين كرسان وطالي كرسان maxaa dhacay markii laga heshiinayey ee dowladda ruushku la heshiinaysay dadkii dhibaatada sameeyey ee meesha carruurtooda ku qabsadeen waxay dalbadeen inay aanu noqoto bolis kifaaya qofka negotiatorka ah ee dhexdhexaadinaya dowladda ruushka iyo kooxda meesha qabsatay ee burcadda ee albaankeeda qabsatay waa noqotay su'aal noqotay waxay u noqotay kalsoonidii ay u shaqaysay dadkeeda kalsoonidii ay ku dhiibatay inay labada xaq kala siiso kalsoonida ku yeelatay inaanay ruushka raacin oo iyada u dhalatay oo jiijmina ay go-ayso oo jiijmina diido laakiin intay warkoodii qaatay halkan geynaysa waa kalsoonida adigaa isku abuuran karaa dadku waxay doonaan bay sheegi karaan waa bilaaadi kalsoonida dadku boqol ma wada noqon karto qof kastaba inuu raaco nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam lama raacin oo dadku inay wada raacin qaar ba harag saarayay qaar baa dilayay qaar baa la dagaalamay haddana ilaahi baa fadilay oo wuxuu ku hadlayay ilaahi wuxuu ku yidhi in hiya ilaa waxyu yuuxa ilaahi baa la hadla oo u sheegay wuxuu ku hadlayay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddana dad baa diidanaa aniga maxameda oran maayo 5 kun halkaa fadhida way wada raaci karaan qasab maaha macquulna ma noqon karto qofka nabi maxamed oo khayru khalqillah adduunka ilaahay keenay diidayay adduunka meel kastuu ku yeeray qof wax diidaa إنك قفك حكمك هو ما وضع رأي كرتان ككسو هجيدا ما وضع رأي كرتان ورأي جادية يعني وعذاب يتنى
وأركتي صح يا أركتي خلطا أدير وين تاسون مركا قف والبنا قف معارض كوا قف والبنا قف فكر كيسة جدا مركا صاران مكولا وفائد ما يريتشينيو فهمك أباهم هيريتشيني شيء ولا بد كان يسكنه شنو ده الحاكم الحاله قولنا قف وقفك كاني markaa halkaa ka dhacay ku markii wad qaadanaysaa inaad fahanto warkaasi horena ma jiro ama ma jiro laakiin su-aasha isweydiinaysa waxay waa kugu sheegay waxay sababto muxuu danaygu jirtay sida inuu warkan kuu sheego maxaa ka galay halkay ka timid wuxuu ku leeyahay markaa in shakiyo shakiga wuxuu qofku xogtan ku siinayaa dhanbuu leeyahay laakiin xogta u baahan tahay waxaa laga yaabaa inay sax tahay laakiin musiibada aniga uga dhaxaysa marka marka aniga xogtaysi waajibkii waxa weeyaan saddex su'aalood buu oranaya saddex goor buu oranaya ask waa hubi waa inaan markaan bedelo shaqada laakiin adiga imika markaad social media tahay facebook wax ku qorto ee aanay oganin ku xisaabin waa adigan qofku wax ku yiri ma hubinaysid maxaa ka dambeeya ma oranaysid waad soo qortay warkii wareegay social media waxa dhex wareegay arrinta hebel baad ku gaftay la tuug baad tiri ma caddayn kartid aakhirina haddii jirta adduunyada ma caddayn kartid laakiin marka qofka ku siiyey sheekadii iska ka sheekaysa marka waxaan u baahannahay maaha inuu yarmuhu qof wanaagsan oo keligii noqdo laakiin waxay u baahan tahay dadkiina caadiga halkan jooga iyo bulshada lafteeda inay fikiri karto oo ay ka fikiri karto maxaad maalin walba qortaa horta maxaad maalin walba ku hadashaa halkay ka imaadaa waxaad ku hadashaa 4 indhood iyo 2 indhood isku dhigsi wax loo maarkaan waa maxay sababto waxaa la sababta waxa looga jeedaa waa in waxaad qoraysaa ama waxaad sheegaysaa tafatir yeesho tafatirka muxuu yahay labadeeda indhoodna wax ku arkay tafatirana dheeray isaguna labadiisa ku soo eegay waxaana lama arkiin isaga arkaya bal adiga waa kaa tafatira biijkaaga waa kaa tafatira bartaada maalin bana waxbaad qoraysa markaa waxaan ka hadlaa maaha inaan idinkaydi ku soo noqdo laakiin dadkii loo warinayo laftoodii ayaan kiridba lahayn oo kalsoonidii iyaga laftooda ay isku qabeen iyo kalsoonida wax ku qorayeen wax ku sheegeen baa leeyahay marka qofka suxufiga muxuu sheegi karaa la noqon karta waa to educate in la idin wacyi geliyo oo wax la idin baro qayb bay ka tahay shaqada markaad warkii aragto soo dib dhinaca caddaynaysa u qaadada aniga waxaan nimidaa dowladdu wayda meelaada laakiin ninka suxufiga shacbi buu leeyahay dowladda haddaad maanta isqabsataan askartay kuu diraysaa sidii doontay kaa yeelaysaa laakiin ama askari ilaalisan ma lihi maxaan ku noolahay kalsoonida dadka xogta aan siiyaan anuu ku noolahay oo iga ah ilaalinayo ciidan marka kalsoonidan laygu ilaalinayo waa fiin taa aan shacabka gashanayo oo haddii aan kalsoonida ay dadka ugu qabaan aan hoos u dhigo dee beritoole qofku kuma difaacayo waa raylo-aankan beritoole ku yiminaya marka anigu maxaan u baahanahay maaha inaan ciddayda raaco maaha inaan qof ku gafo maaha inaan saan dawaa u shaqeeyo maaha inaan muhiimadda kursado laakiin waxaan u baahan inaan kalsoonida suxufinimo dhiso taasaa aniga waxay taraysa muhiimay keenaysa marka saxaafaddeenu u baahan marka waxaa waa saxaafad kalsoonida saxaafad aqoona saxufiyiinta maadaama ay soo bateen dadkii muhiimaddan dareemayna ay soo bateen saxaafadnimada waxaa loogu shaqaystaa shaqooyin fara badan shirkadaha waaweyn baad ugu shaqayn kartaa oo PR-kaasaad noqon kartaa xiriirka dadweynaha communicationkaasaad ka shaqayn kartaa hayadahaad ka shaqayn kartaa translator baad noqon kartaa siyaabo kala duwan baad ugu shaqayn kartaa maahuna inuu yahay qof hadla xagga dambaad ka shaqayn kartaa director baad noqon kartaa chief editor baad noqon kartaa wax wal oo shaqadu waxay leedahay afhayeen baad noqon kartaa waxaasoo dhan waa shaqada warbaahinta maahuna inuu yarmeyna noqdo halka soo istaago marka maxaad u baahan tahay waa inaad nolosheeda kala doorato qofka dhallinyaradana uu gartay halka uu u socdo anaga 30 arday kaliya jaamacadda Hargeysa journalism mass communication kala baxnay 30 kayga arday 5 ardayda malaha warbaahinta ugu jirnaa ninka ku shaqeynaa dhowr iyo 20 kale arday waxay shaqeeyaan shirkadaha waaweyn nin walba waa meel gaar ah jooga qaar baa muhiimadii ka baxay qaar baa muhiimadii ku shaqeeyay hawlaha galay qaar baa telesom dahabshiil sankeedii ma wariyaan dadka muxuu raadinayaa qofku raadinayaa nolol ku filan inuu akhlaaq ku dhisto inuu wax ku qabsado inuu shaqo kale oo saxaafaddu qaybta kale uu kaga shaqaysto waa waxa la dhahaa halkan lacag male laakiin credit bay leedahay waa haddaba se lacag yeeli kartaa dee sharaftaada dhis shaqo fiican qabo shaqada fiican inaad qabato 100 qaab oo aad ugu noolaan karto ayay leedahay maahana dadka baarato maahana dadka lacag weydiisan unama samaynayso adiga dib dadka xusin kara adiga dib wax ugu baran kara dadka marka waxaan ka hadlaya waxa weeyaan
warbaahintu waxay u baahan tahay qof kasta oo soo gelaya inuu si waaqaca u fikiro in aanu qabiilkaaga ku keenin xaafadda inaanu qabiilkaaga kusoo tilmaamin inaanu ku odhan galo inaanu adeerkaa kusoo tilmaamin inaanu ku odhan galo inaanu ninka leeriyanaya siyaasiga xaafaddaada kusoo tilmaamin inaanu galo waa in adigoo garaadkaaga qaba oo fikirkaaga qaba oo si saxa u qaba aad muhiimadda soo gasho haddaad muhiimadda soo gelayso waa inaad aqoon guud yeelato haddaanad aqoon guud ahayn ma awoodid inaad wax qabato ood wax hagaajin karayso aqoonta guud waxay kaa caawinaysaa inaad ka caafimaadka wuxuu ka shaqeeyo fahanto inaad ka dhaqanka fahanto inaad ka beeraha fahanto inaad ka ganacsiga fahanto inaad ka siyaasadda fahanto maxaa socda qof kasta oo inaga mida siyaasad buu ka shaqeeya qof kasta oo halkan fadhiya siyaasad buu ka shaqeeya ama yaryana siyaasad baa ka shaqeeya siyaasadda waa lala qaad biniaadamka way jahaysaa go-aamadeeday jahaysaa dhaqaalahooday jahaysaa waxbarashadooday jahaysaa halka lawaday jahaysaa nolol siyaasadda waa qaab habmarleed muhiimada uu la geliyey falinkeeda guud laakiin qof kasta oo nolosha jooga adduunku wuxuu u baahan yahay siyaasadeeda ku noolaado idinkuna siyaasadii iyo annaguba waxaan ka dhiganay tuul intuu qofku hadlo wax lagu shubto qofka annaguna aanu ninka idinkeeno annaguna aanan qofka waxba ku celin oo waxba la weydiin su-aal qofkan kalena uu arko inay tahay waa la wax marsanaya oo hadlo ninka siyaasiga danbu leeyahay maxay ta dantu leeyahay xeerkayga qeexaya ninka siyaasi wuxuu doonaya inuu wax marsado wuxuu doonayaa inuu qariyo ceebtiisa wuxuu doonayaa inuu qariyo daliishiisa wuxuu doonayaa inuu sheego intiisa wanaagsan wuxuu doonayaa inuu ka guulaysto kaga soo horjeeda wuxuu doonayaa inuu fahmo bulshada halkay ka nugushay wuxuu doonayaa inuu hadlo qaabku maskaxda dadka wax u gashanayo laakiin waajibka ah in laga qabto yaalay waajibkaas suxufigaas kale suxufiga ka qaban lahaa hadduu waalidka intuu ka qaado ra'yiga siyaasiga intu ku marsado adduunkiisa dadkiiyo tiraniyalbaa sideedi dama shaqaynayso wuxuu dhammaan su-aal shalay kan doonaha maanta kan buu shalay sidan buu doodaya maanta tan buu doodaya shalay aragtidaas u qabay maanta tan buu qabaa isaguna 5 qof mise waa 6 qof shalay marka kan kaaliya kan maanta uga hadleeyay kala duwan qofka doorkaala waa suxufiga xeerarkeeda waxaa ku qoran nin suxufiga oo 7 goor weydiiyey su-aal min ministera oo ingiriiska ka dhacday waad guugalgayn kartaa baari kartaa 7 goor muxuu ka doonayaa inuu ka soo saaro jawaabta saxda ah ee uu ka rabo ninkaasi siyaasiga wuxuu diidana waa qaab kala duwan xeerkaana u fasaxaya haddana dhinacan kale u dhigay haddana u fuliyeeyey haddana u weyneeyey haddana u sallaxay bartanka galay waxaasoo dhan ka jawaabi waayey marka dhibku wax weeyaan hadalkaynu ku dheeraayan aad baan ugu dheeraadeen ku dheeraayaan oo dhan raalahaada waxaan doonaya inaan kooban maadaama hadalladii horena ay dheeraayeen aniguna dheereeyin rabin laakiin waxay u baahan tahay meelada saxaafaddu aqoon uu qofka bini aadamka ummadiisa wax ugu sheego ninka siyaasiga ana ninka suxufigaa jiheyn kara ninka siyaasiga maaha inuu ninka suxufigaa jiheeyo siyaasaddana waa laga caajisaa qaanunka looga caajisaa hadda ninka halkan kaga sheekeeyo waxay noqonaysaa wakti dheer oo kale noqonaysaa siyaasaddu caajis bay leedahay laakiin yaa xamaasan yeeli kara qofka suxufiga qaabka u dhigantiisu ka dhigi karaa qaabka loo dhigi karaa xirfadda suxufiga kamid suxufiga haddaanu hal abuur lahayn oonu wax kordhin karin oo aanu fikiri karin maaha inuu nimada saxaafadda suxufiga waxba micno ma samaynayso qof kastaa suxufigaana maanta dabdiij baa leedahay ila waxbaad gudbisaad sheegtaa wada hadashaa maalin walba suxufiga leedatay laakiin hal abuurnima u baahanta السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أدونا فيها هاي محمد عبد لك قضاء سنة في عم بوجه شبابي. waxaan eegi doonaa mawduucii ugu dambeeyay barnaamijka qaybta ugu dambeeyay barnaamijka idinka lahaan doona inkastoo waqtiguna aad inoogu yaryahay su-aalahan isweydiin doona waxay noqon doonaan fahan caynkeeleeg bay dhalinyaradu ka haystaan sharciga miyay jiraan caqabado sharci marka la eegayo arrimaha siyaasadda ee ka qayb qaadashadooda ma ogyihiin dhalinyaradu waxay xaq u leeyihiin mise ma ogyihiin waxaanay xaq u lahayn su-aalahaas iyo kuwa ka fiican jeclayn aan kusoo dhaweeyay garyaqaan guuleed waxaa tahay su-aalaha waqti uma hayno xaruntuna strict rules bay leedahay mar dhow way naga xidhaysaa dadkuna waxay u baahan yihiin inay committees fara badan marka anigu waxaan u daynayaa intaydii dadweynaha hal shay uun baan sheegaya yaa dhallinyaraha waa su-aal muhiima waa highly abused bay noqotay dhalinyaro unesco waxaa ku qoran 18 ilaa 25 jir dadka ah waa dhalinyaro oo marka ciyaalnimadana laga soo baxo welina aan full adulthoodkii la gaarin qofka ama jaamacad buu dhiganayaa ama hadduu jaamacad ka soo baxo afrika waxaa la leeyahay adhoona waxay ugu dareen 35 jir wixii ka yar laakiin somaliland waa 50 jir wixii ka yar taasina macquul maaha marka markaynu dhalinyaro ka hadlayno waa inaynu ka hadlayno aniga fikirkayga 18 ilaa 25
wixii 25 waa yimaad dadka waaweyn aniga iyo inta yaga oo dhan waa nolosha maartay ka qayb gala marka su'aalihiina iyo faalooyinkiina iyo idin jiidan inta Soomaaliland ku base gareeyay 18 ilaa 25 wixii 25 dunida maartay ka qayb gala aad u mahadsan yahay guulaha difaac waqtigeeda noo soo qabayna aad baynu ugu baahnayn waxaan jecelahay inaan dhalinyarta ku wareejiyo weliba maadaama su'aalo badan anigu aan weydiiyey dhinacyo badan aan ka doonay waxaan jecelahay in aad afkaarta iyo fikradaha aad ku biiro horta madashu way salaaman tahay waana boqoran tahay si qurux badan bay u socotaa waxa weeye raggu ma kala dhacaan oo subag ilaahay qaabka ay uga jawaabeen iyo qaabka ay u soo bandhigeen madashana waan bogaadinayaa inay doodaha noocan oo kale ay qabato weliba waan ku sii dhiirigelin inay aad u kordhiso waa meelaha kobciya garaadka iyo caqliyadda dhalinyarta iyo gabi ahaanba halka laga haga bulsho aan u soo dhegay su'aal baan qabaa kumanna aan ka horeysanay haddii ilaha ka dhigo maxamed sulub ustaadka wuxuu ka dhawaajiyey identity crisis baa dhacay waa run oo dhinac walba dhalinyartii qabyaalad baa saameynaysa nidaam kala saameynaysa waa xagga waxbarashada markaan ka hadlay saasun baa lagu wada raacay isla saasuu yidhi nidaamka wax carabka lagu wada dhuftay inay qabyaalad ay jirto waa dhab annaga galkaraan qabaa qabyaaladda lafteeda ama identity crisis-kan lafteeda miyaan laga faa'iidaysan karin isaga laftiisa tusaale dalal fara badanoo waxaa jira ka faa'iidaystay nidaamka qabiliga ah tusaale waxaynu u soo qaadan karnaa dalkan Botswana la yidhaahdo Botswana waxaa ku nool qoomiyado ayaa ku nool ma aha hal qabiil oo sida Soomaalida qoomiyad ah qoomiyado kala gegedisan baa ku nool haba ku noolaadaane qiyaam ahaan diimo kala duwan ideolojiyada kala duwan bay aaminsan yihiin marka waxaan soo koobay way dhibaataa ka qabsatay nidaamka xukuumadda iyo siyaasadda qabiil hebel oo haddana aan diine iyo wax isku keenaan lahayn waxa la yidhi bahashan saynu uga baxnaa nidaamkan qabiligaas saynu uga faa'iidaysanaa iyaga lafteedii waa crisis waa challenge war challenge waynu u arkaynaa ayaynu ka faa'iidaysano hayadaa la yidhi qaabkee waxa la yidhi hebel qoomiyadaasa haddaynu siino xilka noocaasa waa inay keenaan nin specificationska noocaasa leh qof noocaa leh tusaale ahaan haddaynu reerka wasiirka caafimaadka siinayno waanu noqdaa PhD noocaya noocaasa oo intaasoo sano oo khibrada leh haddaynu wasaaradda waxbarashada geynayno reerka kale aynu siinayno waa inuu intaa la mid noqdaa aakhir min wasiir min agaasimo waaxid min shaqaale hoosaad nidaamka ay Botswana ku dhisantay hadda waa sidaa waad baari kartaan si fiican bay dhaqaalaheeda iyo garaadkeeda iyo waxbarashadeeduba hadda ay u kordhaysaa waad baari kartaan marka taas uma su'aal daba dhigayaayo maxamed sulubaan gaari weydiinayaa wuxuu yidhi markaa inta nidaamkaas la kala qoqoday dhalinyarta ama gobol ha noqoto ama qabiil ha noqoto waxbarashadu saameyn ma yeelanayso marka waxaan maxamed weydiinayaa sidee looga faa'iidaysan karaa isla nidaamkan qabiliga laftiisa sidee looga faa'iidaysan karaa su'aasha koowaad waxay ahayd sidee looga faa'iidaysan karaa nidaamka qabiliga aniga waxay la tahay sidaa Botswana uu sheegay mawlid sheegay ayaa looga faa'iidaysan karaa horta nidaamkan Somaliland ama lagu qaybsado siyaasadda ama wax kastaba isna uu joogaa siyaasi ah baranka waxay la tahay inta Botswana oo kale lagu qabsan karo la samayn karo oo qabiilka laftiisu uu soo horeysin karo qofka wanaagsan ee kamid ah uu soo horeysin karo gaabka ku jira waxbarashadeena waxay tahay gaabka ugu weyn ee aan arkay intii aan ku jiray education sector-ka waxay ahayd dhalinyarteenu ma helaan tababar shaqo ama internship waxa la yidhaahdaa ardaygana wuxuu u baahan yahay inuu waxaan uu baranayo wax hadda uga baahan suuqa inuu suuqii intan wax baranayo uu sii eego waxaan uu baranayo si practical uu sameeyo at least uu tago bil ama 2 bilood uu ka shaqeeyo marka qaybta internship-ka ayaa ka dhiman adduunka kalena waxa weeye maalinna class bandarhay maalin field backles field ma banaan field waxa noqonaa inta badan marka dalada loo baxo field waxa weeye waxa tagaysaa shirkadda backles magacaygu waa soo baqareed laba su'aalood baan doonayaa inaan weydiiyo aqoonyahanka madasha fadhiya madashan dhalinyarada ah ee aadka u quruxda badan aad baan salaamayaa su'aashayda koowaad
waxaan weydiinayaa maxamed salo maadaama uu in badan ku soo dhex jiray deegaanka waxbarashada maxay kula tahay waxyaabaha aad ka dhex aragtay iyo gaadiska jira ee aqoonteenu jeej u yeelan weyday ma nooga faa'iideyn kartaa khibradaada hal iyo laba su-aasha saddexaad waxay ahayd maxaynu waxbarashadeena ugu sheegaran weynay si qofka lagu bedeli karo manhajku doontaa soo qaatee waa la samayn karaa waxay tahay 4 sano waxbarashada jaamacadda ku jiro kaliya ka laguma sheegaran karo laakiin waxay u baahan tahay in xagga hoose laga soo dhiso u baahan tahay laakiin waxay la tahay waa lagu sheegaran karaa taasaan kusoo koobayaa saddexda su'aalood su-aasha labaad guuleeda fac hal su'aal baa xaq u leedahay halka waad mahadsantay ما يقولوا دفعوا به ما كبر شرع لو بهيها يقولوا دفعوا حيدينا أنا بقول student تبعنا حي جامعة درجساء يقولوا ده حكوا يدينا يا وام حي سببتها شرعية قانون الضلكو أديك خالد عربة من ذاته وام حي سببت شرعية قانون الضلكو مركز محاكمة هاي ما دام حبا يوجد بدل الله يهين وبرتو تراجيهين سؤال شن كهي إنك من وديسي سؤال شو بريسي الودية بروفيسور كحيل الله هيدو أقوانتي محي وحي تنوي injineero badan baa soo baxay guryaheena waa ka naxaysan sameysay dhaqaatiir badan baa soo baxayso dadkii way xanuunsanayaan negative taasum baa la hayaa oo barigaan bixi negative waa cudur gaar oo Soomaaliland ka dhaca qofkii toor qabay looyaradii way bateen sharciyaqaanadii cadaaladii mashaakilku waa ka sii dar adeeg aqoontiina maxaa ka khaldan anigu waxaan isleeyahay 4 mashruuc ama 5 mashruuc khaldan kow waxaanaynu aqoonta boodina laftigeeda aqoon maaha marka qaar ku bixin khaldan baranayna waxaan ku baranaynaa colonial legacy-gi aqoontii guleystaha ayayna wax ku baranaynaa macnihiisu yahay inaan qofka Afrikaanka ay fikirin wax tar la iman reform la iman sidoo dawladna Afrika uu sii gunteeda oo sii ahaato uu sii liyato horta waa inaynu markaa decolonization of education sameynaa taamaan ugu ku celceliya waxaanaynu baranaynaa aqoon sax tahay iyo wixii ninka caadi rabay inaynu barano horta waa inaynu kala saaro haddii ninka caadi wuxuu rabay in baranayno waxba ma hagaajin karayno that's number 1 number 2 وجنيسي قال لحد أنت بيورلي جنيسي وخاصة بين اللي جت جت قاعد وتياب وان كشيكيني لكن من نقطة قلنا تبي صوبتنا حوالين خيرات في الكورسات دي كون واحد كم تهدى دارك وجود دائما طبعا الدوك تقال بانا كشعب وجود دارك طبعا مية قرن إنسان صواب غيرين تلوك القبيلة دي ولي جنيس يعني سير قبائل دائما توقفها ما كان جنيسها ما هن عارف قف قعد لكن كلوليا الليجسي جوانين كعرف أو قبيل كنا كمية تصدق حيوك والتيجا جامعة علىها أنت بقى وحن كوالي كلام تصل أوري أنا تعال سؤال بحكي أكثر شيء بان تعالى مالا كقل شوي وحنا أهم السنة هاي إن مشورة تيجا لين خيامي معلم واحد شغال الوسي هو بلا عمل يستدعى كورس كدقيا هو برايفة كهيو كسي اللي تانو وحدون يقف كين حوضا كوسي وقصوبه لما يجي كلية دواتو معلم شيء لما يجي يقف كين كلية ما هيستان معلمين تدي لا كيدي وتكوالي تقولوا ويشو كاي إيشو كله وأقوانت حماية أي كمية متنوع حتى بريء هريسي وان كسوق بجدينا شرعي كسوق حي كلية محكمة السماء الآن واحد شوقي هرجيسة هل قف أو شرعي برتلا كسورة كها أنت كالوضعية يري أسكر فيها هاي ما أنت مري الله عن شرعي بدل أنت كشرعي ولا برتة كواه تقولون ليتا واحد كالدوان إنك ريفورميست هاي وماش وتكتين الدشت إنك ماش وتكتين إنك استراكشر كإلى لسه استراكشر مروة قبيل مروة كرهبشة مروة مدحونا لقى بقى وهذا جدك كسيد ما كوسك كائرية وهذا ما نقف كل جوكيني وحصل هو مشاكل مركز يقول بروبلم مو بنفوس يدعي أقول تينو دم بابليسين وحكسيه هنا عندي بوكويشن قراني بان عيو عمسنا واحد قراني إنه رويين يو يعني عمسينين إنه قراني إنه هذا واحد قراني شرط مقعد فتيش نهار سؤال بويديني يونس أنت أنا ويدي يونس أي قصة بعد فكرة كلاين العلم ويديني يساس يسيجي يونس أنكو رأيه واحد ترى سياسة دواد بالمرتوى إن تكسر برتان أنكفه بناوياشة مركا ما دام أنا قدمرنا هم جعلنا إن السياسة بنا عن كقبصنا إني كواحد تتاحس بوضع معارض كوكري إني قارنان فوق الساران جمر كاسة يقول الله سو markay hada markay kursiga helaana iyagoo wixii xisaabsano xalaadana idinku tumar baatiin wayna la xad jubtaan soo markaa waxa dhacaysa sidoo lagu kalsoonaan karnaa oo oran karnaa xisbiyadaas waa inaan taageernaa amba siyaasadda qayb kaga soo galno haddii aan nahay dumar markaas sida kalsoonida intaan la dhalinyahayna haweenka xisbigiina miyuu ku kaalmeyn garanayaa mise waxbuu ogolyahay intaan dowladnimada gaadhinba hadda saddex xisbi keliya hoggaankiisa ugu sareeya uu ku jiro waanu nahay waddan ahaan
shanta qof ugu sareeya inan ka mida ayaa guddoomiyaha lagu qoran oo ku jirta gudoomiye ku-xigeenka shanaad ee xisbiga waxa weeye structureka ugu sareeya saddexda xisbiga ugu sareeya guddoomiyaasha ugu sareeya marka annagu iminkayadan dowladnimada gaadin baanu ayaan hadda hoggaan kusii darnay dowladda dan gaadna insha allah waxa weye halkaa waan kasii dallaacaynaa saaxiibkay yonis baa horta siyaasaddii ka fadhiya halkaa waxaan jeclaa inuu cabdiraxmaan ama muuse ama faysal fadhiyo waxa su-aashaydan keer horreysiin doonaa in yaroo komana waxaan ku celcelinaa qabyaaladda wax kasta qabyaaladda nagu hortaagan qabyaaladdu way xun tahay qabyaalad baa ina haysataa qabyaalad baa sidana qabyaaladda iyo qabiilka xisbiyadan aynu xalka ka doonina xagga siyaasaddan ka hadlaya qabiil baa lagu dhisay golayaashooda dhexe qabiil baa lagu qaybiyaa structureka qabiil baa loo qaybsadaa reer walba kursigaas wuxuu leeyahay baa la idhahdaa maxaynu xal ka doonaa imiga haddaad ku ciyaaraysoo kale oo garoon dhiiriya aad tidhaahdo dhar aad la galo ma adigo nadiifaad ka soo baxaysaa qofka gelaya xisbiyadu waxa ku dhisan reero meel reera ku dhisan haddaad gasho waxaad ka soo baxaysaa reerkaasba adiguna way kanaysa qoladaad u gashay marka yees waxaa weydiinayaa xisbiyadu ma leeyihiin ideolojiyad iyo afkaar iyo mabaadi dadka ku midoobi karaan oo ka duwan qabiilka aynu ku bedelo waa dhibaatayna haystee xisbiginu ma reerahan buu ku duwan yahay reerahan unbaa isku mida ma reerahan baad soo kordhinaysaan mise wixii baad meel ka qaadaysaan anagu ideolojiyadda reernimada kuma shaqayno waxaan ku shaqaynaa mabaadi oo noo qoran oo diidan raacno 7 tiir ka kooban oo waxbarashada dhalinyarada haweenka siyaasadda arrimaha dowladda caafimaad taasaan ku shaqaynaa marnaba xisbigeeda reer iyo qabiil iyo qabyaalad midna kuma sultanaa waayo anigu cabdiraxmaan isku deegaanana principal baan ku raacay odayna inuu kaxayn islaamna inay kaxayn anigaa u tegey anaa ka shaqaystay maanta halkaan joogo adeerka iyo caaqilka iyo sudaanka midnaynu keenay marka waxaan aaminsanahay inaan reernimadu xisbigeeda ka dhex shaqayn saddexaad dhulbey maxaa ideolojiyada haysaan waana haynaa ideolojiyad tuka digan maxaa la yidhaahdaa kaambeeg dee maxaa kama sheegayna doorashaa la gelaya waa la iska koobigaraynayaa waxaanu haynaa oo aan ugu talagalay manifesto dhalinyarada weliba iyo haweenka xoog siinaysa siyaasadda qayb ka qaadanayaan kooto gooniya la siinayo weliba haweenka xisbigii keliya soo barbasgareeyana haweenkay 3 kursi laga siiyo doorashadan baarlamaanku diidan maaha in 3 kursi loo xidho ay ka tartamaan oon cid kula tartamin haweenka oo keliya marka annagu ideolojiya cusub aan haynaa fagaarahan keenna maalinta loo baahdo kaambeeg amaasantay baan weydiinayaa isagii la xidhiidhay saxaafadda iyo dhinacaas weeyaan soo imika waa intaanoo dhan waa soo sheegtay waa saxaafad kamaraday kula hoos ordayeen laakiin kamarada inta yaroo xun unbay ka soo qaadanay tv-ga kusoo baajinay haddii intaasna ay tahay in fiican oo qurux badanoo la daawan karo waa ka xusuusisa kolka shahana odayaashu ay ka daataan markaa mina u baahnayn qof walba inuu muuqaalkiisu fiicnaado codkiisu fiicnaado oo cod asalaa yeesho hadduuna xitaa cod asalaa lahayn waa ina muuqaalkiisa amba labiskiisa lagu qanci karaade say salaanta hore tv-ga ala daawanay ka heshanigade horta xaqiiqda inay isdiitiina maaha wanayna codnay runta dhaliishaanu jecelnahay inaynu cod eedayno oo waxa nafteena ku jiraan qof kala saarnaynu jecelnay ilaahay wuxuu yidhi wajacalnaa shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu dembiyada kuba qabiil baa tahay iskula macaamilo isku xidhiidhiya qabiilnimo si allaala si aad u baabin kartaa way amirtahay ilahayna naftaada runta u sheegto inaad inaad qaabkaad ugu nooshahay unba khaldan ee ad adeerkaana xugu sugaysa caaqilkaana xugu sugaysa siyaasigaadana xugu sugaysa marka su-aasha qabiilka ayuu aad baan xiisaynaya laakiin waa mawduuc dheer waa waxaan ii sheegi doonaa 500 oo dhaliilood oo ay leedahay oo aanad waxba ku qabin maanta siyaasigu muhiimka ku sheegaata ismigiisa
قف بلان سياسي ينسير الله تعالى ينسير الله سياسي إلى في كل شيء إلى بين كل شيء محاط قرطقنا إيه كلا جريمة جدا إيه كلا جريمة جدا أنت يبقى كل رئيسنا فعلا أول كلا يعني وقت المهم شيء ينسير شيء أفضل عدد من كل إمامنا أنا ممكن يجب أن سياسة لا رئيسه هذا يقول الصراحة تاكل من كيسة مثل هذا كده سبب اليمين ممكن رئيسه وبدأ بالمدن سنبوها أيضا سبب اليمين ممكن هذا القوانين وتكدح كليسة ممكن حق السيارة اكتشف تقار كوبدي وحضر الدين فالخصوصية حق كده بيسي وأبدا تسيطة تسيار شيء سبب اليمين هذا بالله يحاولون يوجدك دين شيء وإن الواجب كان يهمك كل واحد صدقه قد يجب أن سياسي تفرضكم مرسله الممكن لا تجيب واحد لا تجيب ولا بقاتل تجيب بنتي صندوقها لا تجيب بنتي صندوقها وحديث عنك إن كان بسرعة إعلان وأنا في المكان كذا يلا أبقى ولا غير كينا وهنا متعلان وفي مشهد الحكمين يعني حديث البنتي تبدأ بعض كله ما كان قاعدين لكن فرقة su-aashayda waxaan doonayaa inaan wariye maxamed weydiiyo su-aal way xirantahay comment haddaad ku darsanayso waa comment waxa weye statistics aad sheegtay waxa weye Somaliland waa meesha kaliya 90% dhalinyarteedu ay bilaashaqo yihiin marka idinku ka saxaafad ahaan marka laga yimaado wasaaradihii way cadeeyeen iyagu inay dhalinyarta waxba u haynine idinku platform noocee wada haysaan dhalinyarta saxaafadda soo galaysa xagga dambe soo kooba qof walba comment su'aal way xiran السلام عليكم هل كلهم با ku daraya anigu kulkan waxa weeyaan horta anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarnimada laftirkeeda foobiya in caawa wax badan oo qurux badan baalkan ka dhacay hal qalado weyn baa gashay dhalinyaradii soo qaban qaabisay maxaan ku dhahdaa xafladan waxa laga yaabaa in qaladka weyn aanu caawalkan kala baxayna in uu idinkana xilidin saaro qalabkaasi ma aha wax halkan laga sheegay marka liinta la tuujinayo haddaan biyo lagu darin oo iyadoo riban laysa siiyo cuntada waa la isnacbaysiiyaa waxay idinoo keenteen dhallinyaradii Somaliland intii ugu muhiimsaneyd baalkan soo fadhiisteen mid kastaba mawduuciisu wuxuu istaahil ku ahaa in habeen gaar uu nala hadlo runtii ma garanayo baryaha barnaamijka u qiimo badan oo dhacay waan Khalid iyo Khadar aad baan idinkaga mahadcelinayaa soo qaban qaabiseen soo doorateen dadka imanaya iyo haddii badan kale soo diyaariseen laakiin waxaan idin weydiisanaynaa inay noogu celisaan inta halkan joogteen tan nooga bilowdaan mid noo balamisaan ee aanay noqonin inta mar isku waa keenteen ciidanka oo dhan hal mar noo wada dhiibtaan intaas baan doonayaan idhaahdo aan runtii aad idinku mahadceliyay hawsha qiimaha badan ee quruxda badan qabateen.